Maanta waxaanu ka hadli doonaa waxyaabaha keena calool istaagga. Marar badan ayaad waxaad isku aragtaa inay calooshu ku taagan tahay adigoonan waxba cunin waqtiyo kala duwan. Haddaba ma isweydiisay waxa keena calool istaagga iyo inay calooshu ku taagnaato ama aad isku aragtid daaco qurun iyo wax la mid ah? Haddaba waxaan idiin sheegayaa waxyaabaha keena calool istaagga joogtada oo aan dhammaadka lahayn. Waxaan maanta idiin sheegayaa 5 wax oo keena calool istaagga joogtada ah oo aan dhammaadka lahayn. Haddaba maxay noqon karaan 5tan qodob ee ku saabsan calool istaagga? Qodobka koowaad wuxuu noqonayaa hurdo la'aanta. Haddii ay hurdo la'aan kugu dhacdo oo aadan seexanin laakiin aad wax iska cuntid oo aadan samaynin wax space ah oo aadan seexanin, waa khasab calooshu way ku istaagaysaa, kadibna waxba cunaa ma cuni kartid ilaa aad samaysid space. Sidaa darteed waa inaad seexatid waqtiyada hurdada ee la seexdo. 3 waqti ayaa la seexdaa maalintii: habeenkii iyo duhurkii iyo waqtiyo kale. Marka saa darteed waa inaad seexatid waqtiyada hurdada si aad u heshid space oo aan kugu dhicin calool istaag. Lambarka labaad wuxuu noqon karaa safarka. Haddii qofku uu safar galo oo uu waqti dheer uu safar ahaado, calooshu way istaagaysaa, kadibna waxba ma cuni karo. Sidaa darteed badanaa markii dadku ay safarka galaan waxay isku arkaan inay calooshu taagan tahay oo aysan waxba cuni karin. Sidaa darteed dadka caloosha ayaa istaagta, kadibna cunada ayay isku khasbaan. Waxba ha isku khasbin cunada, caloosha ayaa ku taagan. Naso waqti qaado kadib cunada isticmaal. Sidaa darteed waa inaad ogaatid inuu safarku keeno calool istaagga. Sidaa darteed uu qofku markuu safarka ka yimaado uusan waxba u cuni karin, calooshuna u taagan tahay. Lambarka saddexaad wuxuu noqon karaa jimicsi la'aanta. Haddii qofka uusan jimicsi samaynin ama uusan dhaqdhaqaaq samaynin, uu cunada iska cuno kadibna uu iska seexdo, waxay ku keeni kartaa calool istaag. Waxaa qasab ah qofku haddii uu cunada uu cuno inuu dhaqdhaqaaq sameeyo ama aalamito ama jimicsi, hadba sidaad u taqaanid waa inuu qofku sameeyaa. Hadduu intaas sameeyo, qofka calooshiisa way soconaysaa, kadibna wax calool istaaga iskuma arkayo. Haddaba la soco, jimicsi la'aanta waxay keeni kartaa calool istaag. Soomaalida ayagoona wax exercise samaynin ama jimicsi samaynin ayay waxay leeyihiin caloosha ayaa taagan, maxaan sameeyaa? Horta jimicsi samee, kadib waxay dhahdaa caloosha taagan. Lambarka afraad wuxuu noqon karaa cuntada aan isku dheelitirnayn. Cuntada aan isku dheelitirnayn waxay keeni kartaa calool istaag ayay keeni kartaa. Sidaa darteed qofku waa inuu cunaa cunno isku dheelitiran ama diet sida aad hadba u taqaanid. Haddii aysan cunadaadu aysan dheelitirnayn, mataqaanaa calool istaaggaaguna wuu badanayaa, mar walbana caloosha ayaa ku istaagaysa. Sidaa darteed waa inaad cuntid cunno isku dheelitiran. Lambarka 5aad wuxuu noqon karaa stresska ama wareerka. Haddii qofka uu wareer haysto ama stress ama walwal uu haysto, waa qasab calooshu way istaagaysaa. Qofkaas mataqaanaa ma shaqeynayo, dheefshiidkiisu ma shaqeynayo, dee maskaxdii qofkaan mataqaanaa diri lahayd oo mataqaanaa shaqeyn lahaydba way maqan tahay, way mashquulsan tahay, qofkiina wuu wareersan yahay. Sidaa darteed wareerka ama stresska ama fikirka badan wuxuu keeni karaa calool istaag. Sidaa darteed haddii aad isku aragtid calool istaag iyo inay calooshu ku taagan tahay, oo kadibna aad markii hore aad wareersanayd ama stress iyo xoogay fikir ama buuq uu ku haystay, waxaad ogaataa ama aad la socotaa inuu keenay calool istaaggaas fikirkaaga iyo stress ku haystay xagga maskaxda mashquulka ku furnaa inay tahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe noo saar oo nagu dhiirigeli si aan kugu soo badino muuqaallo noocan oo kale ah.